ما شاء الله canjeeradeena sidan ayay noogu soo baxday kaala iska aragan ku dheema laga sheekeyn karo canjeero qurux badan canjeeradan waxaa ka sameeyay caano iyo bur iyo ukun baan ku daray insha Allah taala misirteenana waaba taasaan ku dhahay hilib yaa cuni kara maalin walba hilib yaa wadi kara ma sha Allah taala walaalahayga qeyr badan aan rajeynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك دمانتين وايد السلام مي هالكا ايقا داونيسان وا جنال كيغا ام سمير اوفيشيال بليز جنال كيغا تاكو عصبتاي سبسكرايب لايك كومنت انت بإيسار ان شاء الله تعالى ما انت وحا سميسانايا جمعة واي ما انت هورتا دمان جمعة وناكسنا ان الله ما انت وحا اسكو دردريا مسير انكريي يا عنجيرو ايان سمينايا ما انت oo wax hilib aan ku dareyn maraqaas insha Allah taala maalin walba yaa hilib cuni kara bisinko hilib barandho waaba lagu daalayaa marka insha Allah taala basal iyo yaanyo ayaan isku darsaday oo isku dhaxshiilayaa marka isku dhaxshiilmaan ay kaala iska arag noqdaan ayaan waxaan ku dardarayaa hadda maraq digaag iyo waxyaalihiisa aan ku dardarayaa iyo xawaajidiisa insha Allah taala walaalahayga qaaliga isla socono ilmaha maxaan ku dhahay marmar inaan ka badasho way fiican tahay oo cuntada maxaan ku dhahay hilib maalin walba ma cuni karaan misirta xataa inay bartaan way fiican tahay sababtoo ah haddaad misirta barin maxaan ku dhahay hadhow ma ka cuni karaan haddii aad hadda barin oo maxaan ku dhahay misirta iyo digirta iyo waxaas aad u sameeyeen hadhow kaama cuni karaan sababtoo ah chicken iyo bariis baasto iyo barandho maalin walba laguma taagnaan karo iyo hilib ma lagu taagnaan karo chicken iyo jibsi ma lagu taagnaan karo maalin walba marmar waa inaa ugu tuurtid misirta camal oo cunto aan hilib lahayn camal oo maxaan ku dhahay oo misir ku jirto ahaan misirtana waa nafaqo waad ogtihiin insha Allah taala idinkana marka insha Allah taala maxaan ku dhahay waa u sameeyaa horta maanta laakiin idinka in la wadaaga aan marmar waa ugu tuuraa oo maxaan ku dhahay quraaca ooga dhigaa marqadaan ooga dhigaa misirteena waqtaasaan ku dhaway karsaneed iyo diyaarsaneed gab ayaan ku siiyay waan ku daray ma sha Allah taala marka insha Allah taala walaalahayga idinka ayaa inala wadaagayay marka waxaan jeclahay haduu linkigan ku soo gaaro misana aad aragtid inaad subscribe iyo like intaba ii saartid inta horaan ila joogtana insha Allah taala waad mahadsantiina in leeh inta igu cusubna idinkana welcome idin leeh insha Allah taala waa walaashina idin leeh waqtiga ha idin wacnaado marka insha Allah taala maraqeena hadda dabka noo saaran maraqeena sidaas uu karkaraya insha Allah taala wakaasaan ku dhahay kaala iska aragan ku dhahay lagama sheekeen karaan ku dhahay caraftiisaan ku dhahay adigu dhameystireen kabsartiisa xawaajidiisa wixiisa dhawaa ku jiraan laakiin waxa ka maqan just only hilib baa lagu darin haddana canjeerada ayaan soo saarnaya canjeeradan waxaan ka sameeyay hadda baan qasay haddana hore baan ka duwayaa sida u dumi doontaan idinkana waa arkaysin waan ila daawan doontiin waxaan ka sameeyay bur iyo waxaan ka sameeyay ukun iyo sokor yar aan ku daray waxyini soo sokoro laakiin aad uga dhadhameynin iyo waxaan ku qasay caanay bakoob iyo waxaan ku qasay biyo yar aan ku kordhiyay oo kordhin ahaan ooga dhigay insha Allah taala wakaasaan ku dhacan canjeerada kaala iska arag waay lagama sheekeen karo canjeeradan marka walaalahayga qaaliga waxaan idin leeyahay insha Allah taala indhaha igala socdo subscribe tii like taba waa xaqiina tan iyo samafal u sameyn inaad noqoto cunsur iyo xubin muhiim ah mujtamaca uu ku dhaxnool yahay iyo khalqigu la nool yahayna wax tara xoogiisa ku anfaca xoolihiisa ku anfaca aqligiisa ku anfaca cilmigiisa ku anfaca wax tar noqo mujtamaca culaysa ku noqon عنصر واحتر أو وحفائدة ينقو تاسي وحي نقوني سا عمرقا قوينو بركوب خاصة نبي قال صلوات ربي والسلام عليه وحيري قدرك الله تبارك وتعالى وحا عليا دعاء عمرقا وحا سيادية إحسانك يسمفلك أبو النبي قول صلوات ربي والسلام عليه أحسن إلى الناس خلقك إلهي إحسان إيا وناك السماء كتبرت درن حوغاغا كو انفع مسكينك وحسي هداد جيب دانتو نحريس الهي با كو نحريسنه سي وا لوغو سيناياي الهي تبارك وتعالى خلقيس احسان السمادين احسان با لوغو سمينا عمرغاغا وا لا بركينيا غار اهان اهلكاغا قابدادا حكتدادا رحمكاغا نبينا وحا كسغن صلوات ربي والسلام عليه انه يري روحي اي فرح كليني سو جعل
in cimriga loo fidiyo risqana loo waasiciyo si xun inuu u dhintana laga ilaaliyo saddexdaba waynu jecelahay saddexdaa ruuxii rabo oo jecel nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi allah ka baqo oo ha iska ilaaliyo qaraabadiisa iyo raximkiisana ha xidhiidhiyo raximkaaga xidhiidhi qaraabada xidhiidhi waxaad ku dhaanto sii soo dhowee ha goynin keligii cunaha noqonin ehelkaaga iyo qaraabadaada xidhiidhi ilaahay bay tabaaraka wa tacaala intay is hortaagtay baa waxay tidhi rabbi yow magan waxaan kaaga ahay in lay gooyo imagan geli rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala raximkii qaraabadiyey soo raalli kuma tihid ciddii ku goysay inaan gooyo ciddii ku xidhiidhisana inaan xidhiidhiyo haabay tidhi ballan ilaahay agtiisa yaalla wayo ruuxii qaraabadiisa gooyo inuu ilaahay gooyo waxba kuuma yaallo haddaad rabto cimrigaaga in ilaahay kuu barkeeyo laguu fidiyo qaraabada xidhiidhi khalqigana ixsaan iyo wanaag u samee qodobka afraadi wax weeyaan iyo sababta afraad ee ilaahay cimrigeenna ku barakaynayo wax weeyaan in aad khalqiga uga tagto wax dhimashadaada kadib la intifaacsado adigana qabriga kuugu socda rag baa 10 sano ka dhintay dad baa 100 sano ka hor dhintay maantana raadkii ay ka tageen ummaddu intifaacsanaysaa diintan ina soo gaadhay rag baa sabab u ahaa oo malaayiintan muslimka ah waxa ay samaynayaan midhaheeda goosanaya intay samaynayaan in la eg loo qorayaa laana ayagaa dadkan diinta soo gaadhsiiyoo sabab u ahaa qaar baa cilmi la intifaacsada ka tagayoo kutub ka tegay ilaa maanta la intifaacsanayo qaar baa ardo soo saaray ummadda anfacaysa qaar baa ceelal qoday oo masaajid dhisay adeer wax la intifaacsada ka tag ummadduna intifaacsato adigana qabriga kuugu socdo ninkii 60 sano noolaa ama 50 sano noolaa oo manaafacaad ummaddan uga tegay oo 100 sano la intifaacsanayaay cimrigiisa wuxuu ku kordhiyey 100 sano ku kordhiyey waa ajaa'ib waay meeshaasaa lagu kala tagayo addoommadu isku dhaafeen sidaas daraaddeed ku dadaal noloshaada in wax manaafacaad leh aad ka tagto nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay aadamuhu markuu dhinto camalkiisu waa go'aya ilaa 3 mooye ilma kuu duceeyo saalixaad ka tagtay cilmi baad ummadda bartay oo la intifaacsanayaayoo kaa dambeeya sadaqa jaariye abaad yaad ka tagtay oo ummaddii intifaacsanaysaa masjid baad dhistay awqaaf baad ka tagtay ceel baad qoday wahaakada kaasi waa soconayaa ruuxii isagoo nool oo kale uu ka dhigayo camalkii ugu soconaya sidaas daraaddeed cimri barakaysan weeyo ruuxu wax weyn ummaddan uga tagay oo ay meesha ugu socoto cimrigiisiyo wax badan ay ku darmadeen waay tan iyo samafal u sameyn inaad noqoto cunsur iyo xubin muhim ah mujtamaca uu ku dhex nool yahay iyo khalqigu la nool yahayna wax tara xoogiisa ku anfaca xoolihiisa ku anfaca aqligiisa ku anfaca cilmigiisa ku anfaca wax tar noqo mujtamaca culaysa ku noqon cunsur wax tar ah oo wax faa'iideeyo noqo taasi waxay noqonaysaa cimrigaagu inuu barakoobo khaasatan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi